sacuudiga iyo qatar kadino geel oo kumanaan gaaraya oo ay leeyihiin beeralayda reer qatar ayaa lagu khasbay in laga saaro wadanka sacuudiga arrintan ayaa xidhiidh la leh khilaafaadka wadamada khaliijka James Landel ayaa inoo haya warbixinta waxana inoo soo jeedinaya Cabdiraxmaan Bidaan qarniyo badan ayaa geela iyo geeljiraha wataaba waxa ay wareegayeen oo ay kolba u daaqsimo tagayeen meelo kala duwan oo ku yaala dhulka Saxaraha ee jasiiradda Carabta laakiinse waxaad moodaa iyadoo aan wax saameyn ku yeelan siyaasadda iyo soodimaha dalalkaasi oo geelu meeshu doono uu iska jiirayo laakiinse imka waxaad moodaa markii ay qaraxday khilaafka u dhaxeeya Qatar iyo wadamada kale khaliijku in xitaa geeli baxsan waayay oo siyaasadda cagaha la galay dawladaha khaliijka oo ku soo rogay go'doomin dalkaasi Qatar ayaa dawladda Sacuudiga waxay amartay in dadka qadaraawiintii ay ka baxaan dalkeeda waxaana imika ku sii dartay oo ay tiri Sacuudi Arabia waa in geeliinuna naga baxo oo xagga u hayaamo Qatar ayaa Sacuudiga ku eedeynayaan in ay taageeraan mintidiinta iyo xagjirka saraakiil ka tirsan dawladda Qatar ayaa sheegay in 15,000 oo geela oo Qatar laga leeyahay la yiri ka talaabo xadka oo ay imika soo talaabeen sida lagu sheegayo baraha bulshada ayaa waxa ay muujinayaan in kumanaan geeli ay imika xagga bariga Sacuudi Arabia ka soo hayaamayaan oo ay Qatar ku noqonayaan waxa kaloo jira in nirga badan oo geeli ay halkaasi iyaguna imika ay u dhinteen markii Saxaraha la soo mariyay ee hayaan dheer loo lalabay oo dabeetana halkaasi kuleel ku dilay dawladda Qatar ayaa xadka ku diyaar gareysay in balgeela soo hayaamay loo gurmado iyadoo halkaasi la geeyay calafka geelo cuno si halkaasi loogu sameeyo meelo ku nasto waxaana ay rajeynayaan dawladda Qatar in geel badan oo hayaan oo xadka soo dhaafo dhawaan Cabdiraxmaan Bidaan aad ayuu u mahadsan yahay warbixin ku saabsan khilaafaadka wadamada Sacuudiga iyo Qatar oo ku bilaabmay dadka imika sabarmaraya geeli ay dhaqan jireen qadarayintu ee ku sugnaa Saxaraha Sacuudiga